waxaan wanaagsan idil ahaantiin meel kastoo adduunka aad ka joogtaan daawadayaal halkani waa qaarada TV oo alaab kala socotaan wararkii u dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamkaba qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan hadduu rabbi idmo waxa kamid ah xaaladihii u dambeeyay ee magaalada Laascaanood dagaal lagu hoobtay oo subaxii saaka halkaasi ka dhacay ilaa ay haatan xabadda way socotaa khasaare weyn ayaa ka dhashay oo labada dhinac walow ay sheeganayaan midba midka kale guulo hordhaca inuu ka gaaray dagaalkaasi waxaan sidoo kale eegi doonaa hadduu rabbi idmo waftigii ku sugnaa magaalada Laascaanood ee ka socday xagga iyo koonfurta Soomaaliya ayaa isla markaasi loo ogolaaday inay tagaan magaalada Hargeysa waxayna gaareen maanta magaalada Hargeysa iyadoo xabadda ay ka socoto Laascaanood maxaa lagu qanciyay Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu ku dhawaaqay in nimankaasi aysan soo gali karin guud ahaanba Soomaaliland gaar ahaan caasimadda inaysan iman karin waxaan ognahay in xisbiga ama markaasi Muuse Biixi xukuumaddiisa in ay aad iyo aad ay u diiday in guddigaasi uu soo caga dhigto magaalada Hargeysa iyagoo u aaneeyay in aysan ahayn dad dhexdhexaad isla markaana dana gaar ah iyaga ay wataan raadinaya halka ay soo dhaweeyeen Suldaan Hooley iyo waliba wafdi dumar u badnaa oo markaasi laga daba diray kuwaasi oo foodo u badnaa waxooda in markaasi ay ka geystaan halkaasi qodobadaasi kuwa kala dhowr ah halkan ku faaqidi doona daawadayaal hadii ay tahay marka koobaad oo channelkeena aragto nagu soo biiro channelka subscribe saar isla markaana nagu soo biir si aad u hesho warar xaqiiqada ku saleysan oo maalinle ah hadduu rabbi idmo qodobadaasi oo faahfaahsan waxaa subaxii saaka ahaa dib uga bilowday magaalada Laascaanood dagaal lama filaan ah kaasi oo gebi ahaanba hilfaha la isku qaaday oo san jirin wax la isku reebtay labada dhinac ayaa waxay isku adeegsadeen awoodii ugu dambeysay lahaayeen waxaana la soo tabinayaa khasaaro aad u badan oo ka dhashay halkaasi ciidamada Soomaaliland waxay ku eedeynayaan kuwa Khaatuma ama SSC in iyagu ay weerarka soo qaadeen maadaama toddobaadkan ciida lagu guda jiro ay jireen hanjabaado waaweyn oo hawada la isku soo bariyay waxaana hadlay garaadka guud ee beelaha markaasi SSC horkacayana ciidamada ay ka amar qaataan Khaatumo State kuwaasi oo gebi ahaanba lagu amray 7 bari gudahooda in ay ku soo afjaraan kooxahan ku xareysan godka Gooja Cadde waa sida garaadkaba uu ka dhawaajiyay hadii aysan jirin waxaba yaraatee waan oo Soomaaliland ay wado ama markaasi ay doonayso in ciidamadeeda ay uga saarto Gooja Cadde iyo guud ahaanba gobolada SSC garaadka hanjabaadaasi uu soo diray waxaa sidoo kale mid la mid ah soo diray Muuse Biixi oo isagana sheegay in garaadka hadlaya laftirkiisa uu yahay maxbuus isla markaasina la doonayo in ciidamada SNM ay ku soo qabtaan muddo 2 maalin gudahooda garaadada iyo waliba cid walba oo ka hortimaada ciidamada SNM ama doonaya in ay dagaalkaasi qayb weyn ka qaataan hanjabaadaasi waaweyn ee hawada la isku mariyay awgeed ma ahayn mid markaasi la yaab ku noqotay weerarkan saaka dhacay labada dhinacba waayo waxay ahaayeen wax la filayay iyo dagaal la cilaamiyay ay ahaayeen toddobaadkan waxa laga dareemayay magaalada Laascaanood ama bishanba in xasilooni weyn ay ka jirto dadkana ay dib ugu soo laamayaan xarumahoodii hore ay ka qaxeen iyadoo oo magaalada inteeda badan ay iska haawanaysay oo markaasina ciidamada Soomaaliland ay duqeyn kala daaleen dagaaladii hore ama labadii bilood ee hore ee dagaalka uu halkaasi halaakeeyay ciidamada SNM ayaa sidoo kale waxa ay ku eedeynayaan kuwa SSC in iyaguna ay ciidamada SNM subaxii saaka ahaa 2 jiho oo magaalada Laascaanood ay weerar ka soo qaadeen hase yeeshee iska caabin ay halkaasi kala kulmaynaysan filaynin dibna looga qabsaday meelo badan oo markaasi si gaadma ah intay ku soo galeen ay doonayeen in ay gacanta ku qabsadaan waxay sidoo kale baraha bulshada ku soo baahiyeen ciidamada SSC in markaasi ay qabteen dad markaasi saraakiil oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland waxayna soo bandhigeen meydad aad u tiro badan kuwaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada SNM ay ka carareen hub iyo waliba rag dhaawac ah oo saraakiil oo haatan gacanta ciidamada SSC ku jira dagaalka ayaa wali waxa uu ka socdaa duleedka magaalada Laascaanood walow laga riixay ciidamada SNM doonitaankoogii ahaa in ay gebi ahaanba mar kale gacanta u gasho magaalada Laascaanood iyo fariisimo horaanba iyaga looga farmaroojiyay oo ay ku lahaayeen magaalada gudaheeda ciidamada Soomaaliland ayaa waxa iyaguna sidoo kale ay adeegsanayeen hub casri ah kaasi oo gebi ahaanba ay ku eedeynayaan reer Khaatumo iyo dadka markaasi arrimahaasiba sida dhow ula socday in dawladda Djibouti ay toddobaadkan baasi hoose ay markaasi u soo gelinaysay hub aad u tiro badan oo casri ah kuwaasi oo ay doonaysay Djibouti in lagu gubo magaalada Laascaanood ama ay gacanta Soomaaliland ay ku soo hadho
ciidamada Somaliland waxay adeegsanayeen hub aysan horaan u adeegsan hase yeeshee uma aysan suurtagelin hadafkoodii ahaa in gebi ahaanba gacan ku haynta magaalada ay la wareegaan oo iska caabin ay halkaasi kala kulmeen diyaar garow ayaa waxa uu ka jiray labada dhinacba kuwa SSC-na kama aysan liidan waxaana jiray tababaro waaweyn oo ka socday magaalada Laascaanood iyo ciidamo aad u tiro badan ilaa dhowr kun ah oo halkaasi lagu ururinayay toddobaadkanba ama dhowrkii bilood ee inoo dambeeyay dagaalka uu socdayba Khartoum State waxa isku dayaysaa in lagu heday ku istaagto ee markaasina ku dhawaaqdo maamul goboleed ka madax bannaan Somaliland waxayna dhisaysaa wasiiro iyo waliba markaasi golaha ay doonayaan in ay markaasi dawladda dib u dhisaan dhanka kale hadaan eegno guddigii ka socday magaalada Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya oo dhowrkii bilood ee dagaalka uu socdayba ku sugnaa magaalada Laascaanood oo soo maray dhanka iyo Garowe oo xukuumadda Somaliland ee Muuse Biixi uu horkacayana uu ku tilmaamay kuwa dambiilayaal isla markaana haday soo gaaraan magaalada Hargeysa in xabsiga ay liinta ku cabi doonaan hanjabaadaasi iyo waxyaabo caynkaasi hawada la soo marinayay iyadoo la og yahay gabi ahaanba dadka arrimaha geeska faaqidaha in arrinkaasi ay ku kala duunaayeen ama guddigaasi waxayna Somaliland u tiirinaysay guddigaasi guddi koonfurta xaggeeda ka socda doonayana burburinta iyo kala geynta Somaliland isla markaana aysan noqon karin kuwa dhexdhexaada walow ay ka bilaabeen magaalada Laascaanood oo ah xaruntii dhibaatada ugu badnayd ee dhacday dhowrkii bilood ee inoo dambeeyay guddigaasi oo ahaa waliba ujeedkiisu xalinta dagaalkaasi dabada dheeraaday ayaa iyagu laftirkooda inta magaalada Laascaanood ay ku sugnaayeen waxa ay la kulmeen khatarro aad u badan madaafiic ayaa lagu garaacay guri ay deganaayeen hase yeeshee waxba kuma aysan noqon waxayna ku jireen gacanta garaadada oo markaasi iyagu wacad ku maray in haba yaraatee inta ay joogaan aan Laascaanood aysan la kulmi doonin wax dhibaato ah waxaana jiray ciidamo gaar ah oo si gaar u tababaran kuwaasi oo ilaalo khaas ah looga dhigay inta guddigaasi ay joogaan magaalada Laascaanood guddigaasi ayaa maanta waxa uu ka caga dhigtay magaalada Hargeysa taas ayaana waxay ku noqotay dad badan oo reer Somaliland ah markaasina horaan u qaatay hadalkii Muuse Biixi ahaa in aysan guddigaasi ahayn kuwa dhexdhexaad ah aan looga baahnayn in ay soo caga dhigaan Somaliland iyo Hargeysa ayna xabsiga liinta ku cabi doonaan ayaa waxay la yaaban yihiin sida fudud ay maanta ay ku soo galeen gudaha markaasi Somaliland iyagoo waliba caasimadda Hargeysa ka soo caga dhigtay hase yeeshee Muuse Biixi wuxuu cadaadin aad u baan kala kulmayay caalamka wadamada Ingiriiska Mareykanka iyo waliba wadamo kale oo reer galbeed ah kuwaasi oo aad ugu cadaadinayay in uu aqbalo guddiga ka socda Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya Muuse Biixi kaliya awoodda u soo hadhay maadaama ay noqotay gooja cadde oo halkaasi 2 bilood ay ciidamadiisu ku qafaalan yihiin lagana qabtay rag saraakiil oo ilaa 22 gaaraya oo kuwii ciidanka ugu awoodda ama markaasi magaca sareeyay ah ayaa dantu waxa ay ku khasabtay in uu aqbalo wada hadal ka dhan ah dagaalka ka socda Laascaanood haatana waxay guddigaasi wada xaajood la qaadanayaan Muuse Biixi oo ku sugan magaalada Hargeysa